بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داوديال سيدا دولنتين باكونا سو دوادا برنامجكي muuqaalka wariyaha wala wanaagsan daawadayaal mar kale iyo meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii muuqaalka wariyaha had iyo jeer baan ku soo bandhigno nolosha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo barakacay gudaha Soomaaliya isla markaana aan ku jahjahno xaaladda wariyaha meesha uu ku nool yahay iyo maskixiyan waxyaabaha iminka ku dambeeya sidoo kale waxyaabaha barnaamijka kula socotaan oo ah muhiimadda loo aasaasay in qof walba oo Soomaaliyeed ka warhayo xaaladda wariyaha todobaadkani barnaamijka xiisaha badan muuqaalka wariyaha waxa miiska inoo saaran isla markaana taariikhdiisa ku soo bandhigi doona wariyaha Cabdixakiin Ibraahim Cawaale Cabdixakiin Biif oo kamid ahaa wariyaashii ka howlgali jiray idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho wariye Biif waxaan wax ka weydiin doonaa su'aalo dhowr ah oo quseeya noloshiisa iyo saxaafadda waxaana su'aalahaasi qayb ka noqon doona xilliga uu saxaafadda ku soo biiray intuu saxaafadda ku guda jiro dhibaatooyinka uu la kulmay iyo waxyaabaha iska bedelay hamigiisa saxaafadeed waliba jacaylka waxyaabaha uu ka aaminsan yahay عاشق لقى وقلي قفت لقلي أحدي يومي سنة قبي ونويقا قوانتاي أحدي يومي سنة قبي ونويقا قوانتاي kula socod doontaan barnaamijka qaybtiisa waraysiga aad xiiso badan barnaamijka waxa idin soo diyaariyay isla markaan halkaan ka soo jeedi doono anigoo Idriis Axmed Guure waa mar kale iyo barnaamijkii muuqaalka wariyaha sida warankeeda aduu wariyuhu tilmaamo xogtiisa waajibkiisa wargeysyada haduu ku faafo adigoo agar hawga qadan wadkii dibashada hadda waraysigan oo xiiso iyo kalgacal xambaar ayaa su'aasha ugu horeysa weydiiyay wariye Cabdixakiin Ibraahim Cawaale oo lagu naanaysa Biif inuu noo sharaxo xilliga uu saxaafadda ku soo biiray haddaba Cabdixakiin Biif oo su'aashaasi ka jawaabay wuxuu yiri aad baad u mahadsan tahay wariye Idriis Guure saxaafadda waxaan si toos ah ugu soo biiray inaan xarun u shaqeeyo 2007 xilligaas oo dagaal baan u ka socday magaalada Muqdisho waxaan la shaqeynaa markii ugu horeysay idaacadda Shabeelle oo ka howlgalaysay magaalada Muqdisho aan u malaynay ilaa hadda inay ka jirto waxaan la soconaa mihnadaani saxaafadeed waa bad oo qofba qaab bay ku soo gashaa dad baa ku soo galo ehelkoodii oo saxafiyiin hore u ahay dad jeclaysi oo u qabaan ku soo galaan adiga qaab nooc ayaa saxaafadda ugu soo biirtay wallaahi horta waa sax qofba siba ugu soo biiray laakiin anigu yaraanteediiba hobbigayga ahayd waxaan xasuustaa aniga oo markii aabahay oo idaacadda BBC-da oo kale ee dhaafto inaan ugu soo celin jiray dhageysiga raadiyaha oo yaraanteediiba aan ku soo barbaaray anigoo jecel waxayna ahayd ilaa yaraanteediiba hobby aan lahaa oo aan ku ilaa haatan waan jeclahay inaan saxaafadda ka dhex shaqeeyo waxaan la soconaa qofka markuu saxafi yahay saxafi hore kale oo ruucada ayuu ku daydaa ama uu jecel yahay inuu qaabkiisa kala noqdo ma jira saxafi Soomaaliyeed ku day jirta inta saxaafadda ku soo biirna ama hadda saxafi tahay saxafi ku dayato ma jira inta badan yaraanteed waxaan dhageysan jiray idaacadda BBC-da iyo idaacad kale oo afka qalaad ku hadli jirtay oo BBC-da oo hoos tagi jirtay wariyaasha aan jeclaa inaan ku daydo ama barnaamijyadooda aan jeclaa inaan mar walba dhageysto waxaa kamid ahaa Allah naxariista weynaa Xasan Cawke waxaa kaloo kamid ahaa Cabdiraxmaan Koronto oo marna macallinkayga ahaa iskuulka way badan yihiin oo xataa waxaa kamid ahaa nin la yiraahdo New York oo shaqeyn jiray idaacadda FM shaqada la yiraahdo Honofik marka way badan yihiin laakiin wariyo walba waxay ku xiran tahay sida uu marka programkiisa uu soo tagay inta saxaafadda ku guda jirtay wax dhibaato ah soo gaaray ma jiro ku jiraan hadii aan lahayd effect waxay u yeeshay dhaawac soo gaaray baa jiray waxa ugu weyn hadda koor 2008 Muqdisho anigoo joognaa aniga dhalinyar kale oo saxaafadda ka wada shaqeeyo oo kamid yahay istiin la yar liijido idaacadda sib u shaqeyn jiray waxa dhacday inaan ku dhaawacnay hoobiye nagu soo agdhacay annaga oo codad ka duubayna dagaal saameyn geystay oo dagaalkii markuu istaagay annagoo bilaabnay inaan sawirro iyo codad ka qaadano dadkii xaafadaha deganaa meesha la isku darariyo oo suuqa bakaaraha ahayd in halkaa hoobiye uu nagu soo agdhacay anigu waxaa firir iga galay dhinaca sinta laakiin dhaawaca ugu weyn culuslaa wuxuu soo gaaray saaxiibkay istiila wari Cabdixakiin waxaan ognahay wadankii waa ka soo wada cararnay oo hadda South Africa ku wada noolnahay marka laga soo tago
shaqada mihnada saxaafadeed ma jirtaa professional kale oo maan shaqaysan karto wax hadda ii dhicir oo aan sameeyo ma laha marka laga reebo ganacsi ma wax hadda ii dhicir xirfadaas waxaan hadda kadib baranaya maahane ma laha wariye cabdixakiin biif heer intee laga jeceshahay mihnada saxaafadeed inaad gaarto mihnada saxaafadda hadda waan ku dhex jiraa laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan heerka ugu sarreeya ka gaaro وانا كفر حسن وهي لكن ماها مهنة الصحافة درجوين كلا جارو مالها أيوة إسكا أفهم وصل ما مركي لو في رسالة international journalism كلا TV وين كاو كلا الجزيرة كلا CNN صحافة الصومالية لا يوجد بحر حكي لا يجعش أنا كار حقيقة مركا كاجا هورمو حتى ذا نجوا حسكو أركا إنه professional عالمي هاي لكن الصومالية ذا حقيقة قانين قفك kusoo warama ama wax kale kusoo warama inuu yahay qofka caalamiga ah laakiin anigu haatan xataa waxaan isku arkaa inaan caalami ahay hadda waxaan la soconaa in aan soo Afrika wada noolahay marka hadda TV-ga u shaqeysaayo hadda ku hawlgashaayo aad u warantaa waxaan la shaqeeyaa home care TV laho ku xaruntiisa magaalada Hargeysa Soomaaliya ku baxa shaqooyin kale oo jeclahay inaan qabto SBC oo kale dhowr jeer aan ku wajahtaa laakiin wali ima soo galay wada hadal markaan dib ugu laabano kusoo biirida saxaafadda kusoo biirtay ma jirtaa qof aad maanta ugu mahadcelinayso ilaahay ka soo aad leedahay shaqadaani ama magacaan ay yeelatay garab ayuu kaasi aad weyn waxaan marka ugu horeysa ugu mahadcelinayaa macallinkayga qayb saxaafadda markii ugu horeysa ii bilaaway waxa la Saalax Colo Disco Gaabo markii iigu hor dambeysay wuxuu joogay dalka Eritrea sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa bahdi saxaafadda soo gacan qabtay oo kamid yahay Maxamed Mahmada waxaa kaloo kamid ah Alcadaala nin oo idaacadda Shabeelle ka shaqeynay iyo waliba rag fara badan oo hadda halkan aan kusoo gacan qabtay jiraan markaan su'aalaha adag halkaas ugu soo gudub waxaa jirta su'aal kaftara oo saxafiyiinta kaaga horeeyay barnaamijkan oo loo weydiiyay jacaylka maxaa ka aaminsantaa taagay wax jiray anigu وانا واحد نلاش الدنيا عن سامينته أقول كله هذا أنا وأمسنا وجرا وحياه كله لو كوسو مرا مقلوب جعل وقرار ومعاه بين الصومالي وجرا هذون يسمر النوح يا مدري من بقى هي مركب عاضب هيس برامج جوجودي قيبتي جوجودا أنت أجناي مركب هيستي ودور اللي هاد قال صار إن برامج كانوا وسو حرنا إن كستو أشياء كذي أيقدك لكن وحن أدير له هيسك أوقاضو فنانك عم بحي بيكي اللي هذا الدنيا wuxuu leeyahay waa adduun graan adduunyadu hadba galin oo kala ah marka wuxuu leeyahay inkastoo gacawlan garabkiisa suran yahay iyan waayihii gabay kugu oran gob maahe waqtigo markuranba markulada barwaaqo waa graan adduunyadu hadba galin baxay markulada barwaaqo waa giraan adduunyadu hadba gelin baxayne dadka ruuxa gacan maran inkastoo gocawlani garabkiisa suran yahay yan waayii gabay ugu odhan gob maawo